السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي قالقة أصحابتين قالقة سيتهين في عنتهين من نبض قبتين إلهي إذن كيسو ويدي رجينا ملكستو أدونك كجوكتان وماموانا إيو مركلة إيا شانل كيني دمرك صوماليات سيتهين في عنتهين أغيارت شرفت له إلهي إذن كيسو ويدي رجينا اسكسو نقط كلو وناكسن هايه هدو إلهي يراد ماشانا جوغنا dhowrka bilood oo soo socoto iyo inta kale ilaahay ka raali noqdo ii soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada halkan waxaan u imaanay dhoodhoojinta iyo dhiirigelinta arrimaha bulshada lama soo koobi karo xaal adduunyo allaha nabad ka yeelo soo dhawaada welcome channelkeena maamwaani saaxiibada qaaliga ahaan u badnayn waayahan sama joogno halkaanaan joognaa xaggaas bareegaan ka qaadanay dhiirigelinta lagala socdo xagga hadduu ilaahay idmo ee idiin taallo ee afka laga xiray xilliga hadda taagan 40,000 haye soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada ka raalli ahaada komankaan soo galaa ha idin dhahay laakiin weli soo magelin kooda wixii ka dambeeya soo geli doonaa soo komankaaga iska sii dhigo insha Allah isku soo noqod kale wanaagsan waa dhanka kale dhankan iyo dumarka Soomaaliyeed soo dhawaada akhyaarta sharafta meel kastoo adduunka ka joogtaan xaal adduunyo lama soo koobi karo marka waxaan dhexgalaynaa xaal adduunyo intii aan ka gaarno soo dhawaada welcome haye aniga maamwaano waa qofkii aqoon ii leh waxaan ka hadlaa waa dhiirigelin wanaagsan qof walba naftiisa la tacaalayo ama dan adduunyo la yaabay ama wax un kala kulmay Allah kuu saqiro aamin ya rabbi sidaa u aragtaa loo arkay inta ka aragtay ayuu qof walbana intiisa ka arkay ya dan adduunyo inta adiga ka aragtay ayuu qof walbana intiisa ka arkay mooyahayga ii shooran waligaa maqashay qof walba tiisa u taalo marka dhalinyarada qaarkood waxay dhahaan nolosha way adag tahay yaa waa fahmi waaye iyo wax badan waa qof walba saas leh waay mararka qaar waxaa arkaysaa qof da'diisa roon tahay ee mar hore micnaha nolosha fahmay ku wareeray la yaabay haddana intee la geynahay waa adduunyo waa adduunyo shanta qaaradood inta ku nool waa aragteen aanu malaynaa hadda meesha ugu badan ee dan adduunyo la keeno waa aaladda labadii gooni iskugu sheekaynaysa ama iskugu sheeganaysa waa gooni oo wuxuuda private yihiin ama qolooyinka meelo hoose isla fadhiyo oo wuxuuda private yihiin waa gooni taas ma aragno laakiin inta la sheergareeyay waad aragteen amaleynaa wax walba fadhigaagaa lagugu keenaa waxaa la yaabto waxaa ka naxdo waxaa ku farxdo wax maskaxdaada xataa bilaaba inay wax urido waxaa la yidhi ibni aadanka muraayada isku yihiin inkastoo la yidhi muslimka muraayada isku yihiin laakiin ibni aadanka waxbay isfahansiiyaan sooma soo adduunya waa tanaa Soomaali mahmaad waxay tiri badda meesha ka cabtidba waa dhanaan badda meeshii laga cababa waa dhanaan marka waa adduunyo qof wuxuu la kulmayaa wax adag qof wuxuu la kulmayaa wax fiican qof walba maalintiisay soo martaa waxaa la yidhi balaayo intii kaa maqantaa bood kale jirtaa xanuunka intuu kaa maqan qof kale jiraa rafaadka intuu kaa maqan qof kale jiraa geeridu intay kaa maqantaa qof kale jirtaa farxadda intay kaa maqantaa qof kale jirtaa fikraduhu intay kaa maqan qof kale jiraan adduunyo waa saas sida iskaga daba ordayso oo maanta qaba aa leedahay ayaa out la noqonaa albaabka laga baxaya sida iyadoo camiranba loo yimid maanta haddii ilmo yar kuu dhasho wuxuu ka ogyahay mala adduunka inta ooyeyso wixii dagaal dhacay waxa xanuun dhacay waxa baahi dhacday inta isqabsatay inta ka dhacday wixii farxad dhacay war oo haayo male waa beebiga yar warqada cadee ka dhashay maalinta la dhimanayo saas oo kale waa iyadoo camiran ayaa qof walba tiisa gelaysa markaas lagu leeyahay kabiib ilaahay qaatamada sameeyo soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada maadaama aan dhiirigelin ka shaqeeyo wax badan ila soo fodsaaro ama lay keena ummadda dhibaatada haysata dhibka Allah ka dulqaado aamin ya rabbi qof walba waxbuu ka cabanaa marka meeshaan dhoodhoojinta waxaan u imaanay qalbiga ama moral support ka u imaanay arrimaheena khayr Allah ka dhigo Allah nooga dhigo dhamaan wax yaroo simple oo aadan isdhehaynin qof baa ka cabanayo qof ficil culays ku tahay oo ka cabanayo laga yaabee qof wuxuu la waashay umriyaha la tuurto xiska la waayay
inay adiga kula tahay wax yaroo basiida oo aad leedahay ma waxaa yaroo qofka la waashay ee qofka waa loo soo socday wixii adiga kula culus qofay la fududahay qofka waxa la culusna aday kula fududahay soo horaa waxaa loo yiri waxaad adigu ceebta u taqaano qof bay caadadiisa tahay waa iska caadiba soo wadigana dib qofkaas caadadiisi waa adigana ceebay kula tahay ama qaracanay kula tahay ama kalifay kula tahay marka waxaan waa adduunyo marka lagu leeyahay waxa la furi doonaa albaabkii understandingka ama fikradaha ama fahanka aa la furayaa waxaan arkaa dad wax bartay haddana barooranayo aqoon ilaa jaamacad soo dhameeyey dhahaya aqoonteydii waa nothing hal bacad lagu lisay waa waxba kuma shaqayn karo cid u baahan ma arko meel laga maro ma arko dadka Soomaaliyeed miyaynan wax soo saarkaba ka hadlin yaa kuu sheegay weligaa ma maqashay kelmadda yaa kuu sheegay marka bartaan waxaan u fariisana bal inaan sheekaysano waxaan arkaa ilaahay idankiisa qof dhahayo waxaan arkaa aan ka wadaa dad dhahayo aniga waan yaraa waan qurux badnaa waan hanaan wacnaa waqtiga gooro dhamaadayba ma aqaano hal mar uu aqligayga soo degay iyadoo da'dun igu socotay maamwaanay maxaa sameeyaa habaryar yaa kuu sheegaa waqtiga inuu socdo waxaan maleynaa dhowr sanaan dhehayna waqtiga ka faa'iidaysta ilaa haddana waa dhahaynaa waqtiga ka faa'iidaysta wax joogaya ma leh quruxoo caafimaadoo waxqabadoo xooloo adduunyo waa un la socdaa yaa waa la socdaa dadka qaar waxay leeyihiin waxaa igu furmay tashuush fikrado meelay ka imaadeen ma aqaana hadal unbaa igu furmay buuq fikradaha sida roobka iska soo daba dhacdhacayaan qalad miya qalad ma aha ilaaha kuu sahlay finally fikrad fiican aa haysaa kusoo dhawaado dumarka Soomaaliyeed iyo maamuwaano dhageysi wanaagsan dan adduunyaan dhexgaleynaa meeshaan waxaa loogu talagalay inaan isku dhiirigelino qalbigana aan ku dhadhayano adduunyana insha Allah aan wax ka ogaano soo dhawaada noo soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada haddii aad nagu cusub tihiin dadka waxaan u tilmaamaa inay is casuumaan naftaada markaa casuumato dantaada markaa u laba fiirsato ilaahay markaad barido fikradaha naftaada ay curinayso markaad kala aqoolato haddii kale wixii way is dardarayaan mugti soo kala aqoolo insha Allah midda kale Allah noo sahla Allah noo saqiray qof walba dabeecaduu leeyahay dabeecadaasoo dhowr damac oo kala nooc ah haysato marka saa u joogtidoodu ordaysidaa waxaa ogaanaysaa inay da'duba ku haysa markaasaa qaracan alla maanaa ogaayey waxbaa iga daba yimid ya mararka qaarkood waxaa ogaanaysaa inaad dabeecadaada ay diidayso dabeecado badan sida loola dhaqmo sida loo hadlo sida wax loo xeeriyo waxaa ku mashquulaysaa dadka kale wax qabadkiisa dadka qaar anigaan maamuwaana hadlaayo halkaa iska fadhiyo ummaddaa la hadlaayo ayaa laygu qabsadaa qaabkaanu hadlaayo because aqligaagaa dhalay inaad i qabsatid waa inaan ku dhaho isdeji dadka keligaa ma tihid sida adiga u fikiraysa looma wada fikiraayo macal aniga dadka ma ku dhegi kari waa inaan fikrad walba lasoo dhaweeyaa oo layidhaha maxaa kaa khaldan maxaa kuu saxsan siduu yahay xaalkaaga haye waa qof dhan baahidiisii inuu qof kale iskaga dhago maxay ugu xaqsaday dadka qaar la ooyaan inaan saas u hadlo maxay ugu xaqsaday inaan saas u fikiro maxaa sameeyaa seen fikradaha iskaga kala joojiyaa yaa yaqaan 60 jir la jeclay tir Soomaali way aragta Soomaali inuu qofku adkaanayo marka la soo weynaado dhalinyarada inta badan hadii la qayliyo shib hadii la qoslo shib wax walba danka ma leh hadii kula qosli kara kula qoslaa laakiin qaylaha haday noqoto waa ilmo yar hadalka haaf ma fahmaan laakiin ma soo weynaat hadalka meesha u socday meesha ka socdo hadaadan fahansanayn xataa ada isfahansiina ha saas waxaad ka wadi waa saasine saas waxaad ka wadi waa saas oo maaha abo dadka qaar lama hadli karo aalasii hadlaysid maahana waxaadan adiga dhihin ay ku leen waad idhaxday doqonaan ahay Soomaa aniga bar ee Soomaa aniga bar baad itirsama doqon baad itirsam goormaan ku dhahay adaaba afka ii gelinooye hal kelmad xataa ma sheegi kartaa daa sheegta anaa iga wadaa lagu leeyahay dadka saas waxba lama fahansiin karo markay fahmaan inay ayaga qaldan yihiin xataa waa qaldanaha ma dhihi karaan see la yeelahay dadka qaar way soo rooraan maadaama ani waxaan ka shaqeeyay waana tahay nambarada laga helay hortiina yaa la soo xiriiraan dadka markaas waxay leeyihiin maamuwaano dhibaatadii haysato xataa ma hadli karo ya afkii juqda gabay maxaa loo yiri dadka qaarkood ma hadli karaan haday hadlaan
inkaaraha ka raacayso waxayna filanaynin oynan u fadhinin ayaa lagu leeyahay sayeele mararka qaarkood waxaa la sheekaystaa dad dhahayo sawjkayga ama sawjadeyda inta badan u badiya sawjka asaa ilaa wax xukumo ilaahay ka sikow wuxuu ugu leeyahay bax idhaaf markaan is iraahdo baxna meelaan aada ma lihi haddaan is iraahdo tabaabushaydsana ma ka tabaabushaysan karo meeshiina amarka ilaahay ilmaa yaalo ilmihiisii kama wadi karo naftaydii kama tegi karo waxaan ku sameeya maaqaani afxumadii qayladana iga dhaafi maa haddaan la joogana waa ii dhib haddaan ka tagana waa dhib maxaan sameeyaa see u xalliyaa markaasoo kale waa inaan xasuusano duco insha allah xag rabbiyo qabow ka imaanaa mararka qaarkood waa qof aadan ka tegi karin ehel aan laga tegi karinaa jiro haddaad tegi lahayd xataa meelaad aadaysid male hoo meel kalood rabta male meeshaad joogto meel kaaga fiican ood aragtid male midda kale dadku maxay ku leeyihin markii la kala tago ama markii la tago I know dadka inta badan way soo boodaan waxay dhahaan meelaad ku dhibantay haddaad joogto dad maxaa kaa galay maxaa kaa gali waaye 4 beriyaad miiska saarnaanaysaa waa lagaa hadlaaya weligaana waa lagu sii xasuusanaa yaa marka waa cajaa'ib dadka qaarkood waxay dhahaan maamwaano ila tali danteydii baanba ka habsaamay danteydii caafimaadkeygii quruxdeydii danahayga dhan aan ka habsaamay maanta oo dhan qof walba waxbuu ka cabanaa dadka qaar waxay ku leeyihin dad badan oo iga qurxanaa jiro aniga maxaa quruxda ii diiday amiin ilaahaygii ku qalqaaba ku doorto qaabkan kaa dhigay maxaa dad kale iyo siday u egyihiin kaa galay adiga sidaa u eg tahay ilaahaaba ku doortay soo inaan qofkii lagu tuugtuugo soo naftiisa u jeclaa lahaa cajaa'ib dadka qaar waxay leeyihin maamwaano waa ku salaamaa habari salaanka bacdi aniga guur waa soo qabi waaye nagygan guur aan ku qanco oo nafta yar ku aamino waaba soo qabi waaye habar maxay kula tahay I don't know shukaansiga waa muujad dadka aqli badan aa rabtaa inaa wax la qaybsad laba ewer lagugu dhaafaa shukaansi waa khatar qofka ogeyn oo ogo dadaa ka qayliyo gacanta ka taagtay alxamdulilah ilaahaygiina mootay ilaahu dib ha noogu celini laakiin waa khatar wallaahi shukaansiga waa lagaa aqli badinaa maahane xaggaa lagu kala jeedinaa bismillaahi raxmaani dad xariifiin ah aad sanad kasta ku jiro suuqa oo shukaansiga ilaahay ha u sahla guur oo ha ka saara suuqa waayo dadkii isdaba marsiiyeen maasha allah dadka qaar waxay ku leeyihin maamwaana aniga waxaan fahmi waaye habkee heer loo gaaraa heerka la sheegaanba gaari waaye armaaba ku jirtaaba oodan is ogeyn heerka la sheegayaba amaad joogtaa waayo qof walba sibuu heer u gaaraa sooma okay walaashaan waxay tiri maamwaana waa ku salaamaa salaanka bacdi maamooy waxaan kaa codsanayaa in aad dadka fahansiisid habka nafta loo dejiyo abilif waaba degsanahaybo alxamdulilah haddaan guri nabada joogno cunno cabno caafimaad qabno naftu waa iska degantaa laakiin waxaad rabtaa malaha waa siyaadadaasa baahida xagee ku wajahdaa ma shaqaa ma guura ma farxada ma ishagaajisa xagee ku wajahdaa waa inuu noo kala caarifnaato meesha aan u soconno iyo danta aan leenahay iyo sida xaalku yahay laga yaaba haddaad is waraysato waxbaba inay kaa dhineen ood habi tahay waxa kaa dhiman inaad tiraahdo waaye alxamdulilah ilaahayow ii siyaadi okay dadka qaar waxay leeyihin maamwaana sidee dabeecadda loo sameeyaa dabeecadda qofka siduu u qurxiyaa oo u sameeyaa wax ogolow adiga wax ogolow in agtaada lagu qosli karo in la sheekeyn karo inaad fikrado kale dhageysan kartid maseyr iyo xanaaq iyo degdeg iyo xumaan iyo liidme iyo bahdil waxaas markaa nafta ka reebto agtaada lagu qosli karo heer lagu gaari karo nolol hortaada lagu sameysan karo then it's fine adigana waxaa ku qanacsantaha wuxuu ilaahay ku siiyey dadka kalena waxay maaragtay ilaahay siiyey marka qanaacada aan raadinayno qaabo badan ay kala leedahay naftaada leh haddaad ku faraxsan tahay naf kale waxay heshay waxaynan haynin intaba waxba kaama gelin marka taas what you supposed to do insha allah amuurta kheyr allah ka dhigo allah nooga dhigo dhammaan maamwaana sidee loola macaamilaa su-aashan kale waa sidee loola macaamilaa dadka loo yaqaano gumaadaha ama gumaadada dadka gumaado aa laga wadaa basically aamusnaana wax lagu xeeriyaa qofka wax gumaadayo inta badan hadalka hadduu kugu gumaado kale jiska aamus zib
hadalka aa ku hadlaysid oo qofkaas quseeyana macaan ha noqdo hadal macaan uu ilaahay raalli ka yahay hadalka adiga ku damqana ka leexo inta badan waxaa la sameeya qofka gumaadaha qolkuu ku jiro waaba looga baxaaba limid aa lala joogaa waqti limid ah waqtigaas oo weliba inta badan aadan la hadlaynin haddaad la hadashidna jawaab macaan aa siinaysid qofka wax gumaado uu caajisa marka lala murmo marka laga caroodo marka la ooyo marka la xanaaqo marka la caayo marka la habaartamo qofkaas wuxuu sii helayaa sida babis oo kale dab haddaad ag fadhido yaa xasuusto afrika dabkii la babi jiray burjikadii waxa markaa dabka la babiyo camal babisuu helaa soo adiga oo la hadashid babisay u tahay waa sii hurinaysaa markaasuu ku baashaalayaa siduu kuu galayo ama siday kuu galaysa qofka gumaadaha ah wuu ku baashaalaa marka haddaad u aamusto wax dambe oo dabkii hurinaya male soma so that's what's gonna happen amuurta kheyr allaha ka dhiga allaha nooga dhiga dhammaan dadka soomaaliyeed maamwaanoy waxaan uga yaabay kulli way qayliyayaan maxay kula tahay waa su-aal kale I don't know hadalkoo macaan hadalkoo degan hadalkoo akhlaaq leh hadalkoo nabada hadalkoo duco leh hadalka oo laysdeeqsiiyo I don't know ma wada hayna runtaa waa so haddaad aragto dad soomaaliyeed oo badidooda qaylinayo hadalka macaantiisa lama soo kordhigin so dadka qaar markay hadlayaan waa yaabaysaa buuqii qaylada hadalkooda ku badan iyo dooda okay su-aashan kale waxaa maamwaano wagsalaam salaanka bacdi dadka soomaaliyeed habar yar iskuma deeqaan horumar maxaa qaldan okay taas waa tarbiyad kale ee nationka dhan haysato qofka inuu heer gaaro horta iskuulka lagu baraa ilmaha ilmihii la baray ayaa ilmahooda bari karo marka waa hooyo ka hooyo ka hooyo ka aabo ka aabo ka aabo ayaa heerka laysbaraa soo haddaadan adigu ilmahaaga baraynin ilmahaaga intay ka keenayaan marka ilmaha la baro ayay ilmahooda baraan marka iskuulka lagu barana dadku waxay helayaan fursad ka madax bannaan aabihii hooyo haddayna barin xataa marka horumarka ama lifeka qualityga leh dadka iskuulkay ka keenaan qaas ahaan tacliin ahaanay ku helaan discipline ahaanay ku helaan wax saa looma hadlo saa lama dhaho dadka lama gumaado jeelaad gelaya inkaaraa kugu dhacee kanaa kugu dhaca qofka aqliga iskuulku kasoo buuxsaday waalidkii iskuulka looga buuxiyeen ilmihiisa usii buuxiyey marka dadkii oo ilaahay amarkiisa xagga aqliga ka dhisan xagga dakhliga ka dhisan xagga nabadda ka dhisan unba isku baasi karo quality life laakiin dadkiioon wada helin tacliin waa laysla wada degaa marka hataad adiga xataa baari tahay ama nolol wacan aad rabto annaga kalea kula degayna buqintaa kugu dheganahay marka adigana dabeecadii kaa xumaanayso taas waa markaa hadal istiraada hadal qaraar ku hadlaysaa noloshaadii ma ujeedid quruxdeeda ma ujeedid wanaageedii buuqiyaa badanaa marka saasaa ku arkaysaa dad badan oo soomaaliyeed oon wax wanaagaba tilmaamaynin hadda u fiirso dadweynaha kale adduunka waxaa la siiyey fursad ganacsi markay noqoto wax walbay ka ganacsan karaan adigu un xamigaagiyoo ku ceelin haddii la yidhaha warshadaha mooska hal ma aha intaa hoo qofaa mooska ka ganacsato oo daqli kasoo galaa qudaaraha yoogarka fruudka loosyada malabyada caleenta cunada rootiga dukaamada waaweyn markaa dhex marto qurbaha u fiirso shay kastood kor u qaada waa kambani madax bannaan qolaa iskale meeloo ku yaalaa shaygaanay sameeyaan ama 10 nooc oo shaygaanay sameeyaan sida hadda waxyaabaha oo xirxiran oo kale oo gasacyada ku jirjiro kale waxaa laga yaabaa dhowr nooc inay u sameeyaan hal warshad dad badan ka shaqeysto dadka iskalena way ka lacagaysteen shay kasta ood kor u qaadaa qolaa fursad loo siiyey ay ka faa'iidaysato ee maanta aan sabool ahayn laakiin dadkaaga markaynan kulligood lahayn wax soo saar laakiin ay yihiin the consumer kuwa gato kabta gato karinta gato telefoonka gato maaragtay alaabaha guryaha gato way soo gataan way sii kala gadgataan dadkii dakhligoodii ma badanayo in yaroo lacagaa ku dhex meeraysato laakiin wax soo saar kale ay dunida ka keenaan qarash dabadeedna waddankooda ay gashtaan ma leh so dadkii xagga economiga ama financeka kor ma u soconayaan dad badan markayna kor u soconeen ee nolol gaajaa ku nool yihiin tuugadaa badanayso saboolnimadaa badanayso baahidaa badanayso dagaalkaa badanayo burburka qoyskaa badanayo you are going nowhere with your life waxaaba laga yaabaa in hooyadaana sabool ku dhalatay ku kortay adigana sidoo kale ilmahaaga fuujirkoodana sidoo kale ka alla magan laakiin 3 fac oo waxaa arkaysaa saboolnimo ku barbaaray
fici afraadaa lasii laacooya marka aqoonta dadka waa loogu deeqaa hadday tahay dhaqaatiirta meeqa dhaqaatiiraa jirto indhaha ilkaha maqaarka lafaha murqaha neerfaha fertility-ga dhinac kasta maskaxda wax walba dhakhtaruu leeyahay dhakadee ku xanuunto dhowr noocoo dhakhtaruu leeyahay jasta dhagaha leh maxaa u malaynaysaa gudaha hoose laakiin wiilkaaga soomaaliyed dhakhtar maaha xisaabsan lafaha laakiin waa qof kala dilaayo ama maagayo wax aqoona uu leeyahay male daas waayo qof kale ugu mashquulaa inuu u dilo ama u dhaco ama u caayo wax kaloo aqli oo haayaba malaha so social media haddaa dhex marto waxaad arkaysaa dad badan oo dadka caynayo haddii xagga aqliga laga dhisi lahaa cidna kumay mashquuleene ayagaa lafahooda ku mashquuli lahaa inaan qof kale la gumaadinna way fahmi lahayn marka wayba ka joogsan lahayn caydaa yaraa laheyd dadweynaha kale markaan arkay tiri gabadhan habar yar waa busy hadday ku jiraan aaladda iyo hadday maraan dariiqa iyo hadday yihiin the consumers kuwa wax cuno ama kuwa wax dhagaysta ama wax ku akhristo waa mashquul way jiraan dad negative oo social media ku jira oon Soomaali ahayn laakiin inta badan waa dad busy yes waa busy markaa shaqaale tahay waxaad mashquul ku tahay shaqadaada adoo daalana shaqadii ka timid cidba lamaba hadli kartide qof iyo adiga isma arki kartiin because waaba daalanta maskaxdaa ka daashay daqli ahaana akaankaaga waa camiran yahay then what waa raaxaysan leh cibaadayso cun cab adduunyadan meesha harta ka mar waxaa rabtid gado just enjoy your life laakiin dadkii markii struggle-kii lagu dhaafay ama noloshii qariban lagu dhaafay albaabka loo soo ooday deen maxaa dhacaa dadka way islaynayaan fikrado xunxunaana laga dhaadhicinaya so daas waa u aragnaa dad badan oo Soomaaliyeed oo negative ah okay gabadhan kale waxay tilmaamaan oo salaama waxaan jeclaan lahaa inaad kasoo jawaabtid haddaan tagno channelka dumarka Soomaaliyeed su'aashaydan habare dadka Soomaaliyeed looma digo maxaa qaldan dadka oo dhan maamo adigoo kale adiga haddaana noo digin yaa noo digaya dadka naga hadalka dheer ama tiifiyada ka shaqeeya ama dawladda ku jiro ama culimada diinka ayagu haddayna digniinta badinin then yaan dabagalnaa yaan ka dhagaysanaa digniinta waa muhiim wax inoo sahaya ma jiro waxa ugu simbalsan waa toojka wax lagu ifiyo karboonada ama toojka dad badan oo Soomaaliyeed gurigooda ma yaalo korontada maanta aan ku tashanayna haday danto ma haysana tooshan shidano ma haysano marka waxaan iska daama fahano biri ka tasho dhibaatada ma fahano wax meel dhigo ma fahano dadka dhaaf ma fahano lafahaga wax u qabsa ma fahano qaarkood markaa tira lafahaad u qabsa maxaan qabsaday ay ku leen because meel ay ka qabtaanba male ciday la hadlaan male ciday wax u sheegtaan male ciday ka faa'iidaan male horumarka la sheego cid u tilmaanta qaabkii loo heli lahaa male 5 sano ka badan ay nagu qaadatay inaan inta imaano oon ku sheekaysano sidaan hadda u hadlayno finally aan wada hadalno 5 sano 5 years ay nagu qaadatay ka horaan ka hadli jirnay meelaha hoose aan fadhinay finally waxaan dhahnay waa ka hadlaynaa waa hadli weynay marka hadda iyo dan just ka hadal danta dadkaaga haddii ay ku hayso laakiin dadka intaadanba wax u qaban adiga wax qabso tiisa wax u qabsadaa tu kale ku daraalid sax marka taada wax u qabso ilaahay idankiisa allah wax khayr la kuu qabto farax duceyso tartiib noqo heerka la sheega oo adduunyada ay gaarto oo Soomaalina aan la rabnay nafteena waa la gaari doonaa ilaahay idankiisa aan duceysano aamiin ya rabbi gabadhan waxay tilmaamaan oo salaama salaanka bacdi waxaan rabaa inaan kuu sheego gabdhaha Soomaaliyeed runtii waa dad u muhiima bulshada lamana ogo baahidooda maxaa laga qaban karaa arrinkaas been ma bulshada muhiim u tahay qofka dumar aad ay muhiim ugu tahay waayo hadii ilmo la dhalaa iyada dhasho hadii reer la dhaqaa inta badan iyada dhaqdo waa iftiinkii nolosha qof dumar laga ma maarmo but lama oga baahidooda dumarka waa ka cilada badan yihiin ragga stresska iyo anxiety-ga dumarku ku badan yahay waayo dumarka bil walba dhiigay daadiyaan hadayna daadina waa cilad haday daadiyaana waa cilad miis caadada marka nafaqo badan ay u baahan tahay farxad badan ay u baahan tahay ilaahay idankiisa hadiyaday u baahan tahay ducay u baahan tahay macal isha iyo cayumanaaska dumarkay u badan yihiin inay ku dhacdo marka dumarka lama ogo iyaduna isma ogo iyadana lama ogo marka hadaa aragta hadda waxaan taas ku fahmi karnaa anisoo nafaqo kama shaqeeyo dabiib iyo dadaal nafaqada dumarka badan kun jeer nafaqada dumarka badan kun jeer ragga waa runtooda ayagana nafaqadooda waa loo baahan yahay laakiin dumarka ka nafaqa badan
waayo dumarka hormoonkooda keer badan u baahan yahay waxaa ku jiro mashiinkii haddii ilaahay ilmo gunto oo beebiga ku dhex kori lahaa wejis raximkana hadduu nafaqo waayo waa bukoodaa hadduu bukoodana waa howlgabaa howlgabkiisana de waa baaba-a bulshada xaggee laga tarmi haddaan dumarka keer la siinin wiilka cad hooyaa dhashe gabaraa dhashe gabadhana hooyaa dhashe marka aabahana waa muhiim hooyadana waa muhiim gabadha waa muhiim wiilka waa muhiim gabadhana waa in extra because anaga feeling kalaan wadanaa ninka wuxuuna danayninaan danaynaa quruxdaan danaynaa farxaddaan danaynaa maxaan danaynaa nolosha wacan horumarkaan danaynaa hadalka macaanaan danaynaa ragga qaabkii uu hadlaya waxaa laga yaaba inuu madax dawaqin maanta o dhan inuu nin qaylina laakiin oo madax dawaqin annaga haddii nalagu qayliyo ama aan qaylinin inaan dawaqno 100 go-aanaa nagu soo degdegto like arrinkan ka tag qofkan ka tag noloshan ka tag guurkan ka tag inta badan guurka dumaraa burburiyo lamana ogo marmar dhifow ninku dhahaa ma raba guur oo iskaga tagaa laakiin inta badan guurka dumaraa burburiyo haddii la doono guurna dumarkaa hor doono amarka ilaahay ku dhacday marka baahi badanaa dumarka ay haysato allaha u saqiro waa ka howl badanaa xataa ragga waa ka war badanahay waxaa laga yaabaa nin ragga inuuna maali ilaahay keeno topic ouna ka hadli karin ilaa shaqo ahaan hunguri ou ka galo nin tv taagan ama idaacad taagan ama youtube taagan haddaad aragto u fiirsa hunguriyaa ka galay laakiin gabar waxaa laga yaabaa meelayna hunguri dhanka helayni inay maantoo dhan ka hadasho waa lagu mahmaahay waxaa la yidhi haburu meelaan howl ugu jirnay hagoogta kaga dhacda yaa lacag ku siinaya habartii warka badneed nobody haddaaba lacag lagu helaa laakiin waagi hore wax ku helaya male maasha allah soomaali waa soo fani wallah haburu meelaan howl ugu jirnay hagoogta kaga dhacda macquul soo dumarka waa saas waa ka hadal badanaha ragga waana ka aragti dheernaha ragga ilaahana noo dhaliyay baahiyoo dhan annagaa ujeedna dhusuqu dhareeroo dhan annagaa ujeedna hamiyoo dhan annagaa ujeedna marka maasha allah nin dhife ayaa baahida noloshiisa ka hadla waxaaba laga yaabaa kun nin inayna garanin gurigaaga waxaasu u baahan yahay laakiin inay gabdhuhu gartaan maybe inuu 1 iyo 2 gurigiisa wax u gatanin marka hore guri la dagaa maybe inuu ku fikiro guriga waxba u baahan yahay ilaa baahi weynaa gurigii taala sax gabadhana gurigiioo buuxay wax soo wadaa way kala bedeshaa way soo wadaa waaba laga yaabaa in laisku dilaaba laga yaabaa naga dhaaf gurigan waxaa usoo gadaysid so waa ka baahi badana ragga qof aamusan oo meel iska fadhiya inaan 10 jeer dhahno maxaa kugu dhacay see dareemee see okay ma tahay aan dhahno ragguna hadday nafta kugu yar tahay qirriq kugu dhehayso oo aa jiiftid inuuna dhihin bal qofka soo rog yaa amay naftaba ka socotaa maxaa ka qaldan qofkaan iska jiifo dhaafuu ku leey waa nasanaa qofkaani adiguna naftiyaaba ku haysabo gabdhahan waxaa laga yaabaa inay dhahaan qofkaan indhihiisa uma begin qofkaan ama canugan ama cidaas indhahooda uma begin annaga saasaa ilaaladeen u badan tahay ishaaradeen u badan tahay weliba dumarka qaarkood siyaado waa way ka sii sitaan dadka kale saasay hal markuu fiirinaysa dharag way soo saareen waxaa kaa qaldanay soo saareen marka hadday baahida bulshada soomaaliyeed gabdhuhu soo saaraan la yaab ma leh ilaaha noo sahla allaha noo saqiro aamiin yaa rabbi gabadhaan waxay tiri soomaalida waxaan kala yaabay maamwaana bacdal salaamaya waxaan kala yaabay soomaalida wax kasta oo heer keeni karo way diidaan qofkii gaarana waa dilaan maxay kula tahay ilaaha dilo laakiin waa lagu sababaa yes arrinka haldoorka ay iska dilaan soomaali ilaahay baa oofsaday waa arrin la wada arkay meeqa qof oo haldoore ayaa gacanta soomaaliyeed ku maqan adduunyada kalena qarashaa lagu bixiyaa inuu qofkaagu haldoor noqdo weliba markay doqomiin noqdaan dadka aynan heerka arkaynin ay nolosha arkaynin ay mustaqbalka ka fikiraynin wadankaas waxaa laga dhabarku ka jabay dadkiisa waa iska daam IQ-gooda yar aqligooda yar qof haldoora hadduu ka dhinto wadanka dhan aa u ooynaayo alla qofaa naga dhintay alla dadka qaar haddii la wareysto of course waa ku dambi waxay leeyihiin qof kale inuu dhintaa fiicnad intay hebel naga dhimalayo hebelaayo naga dhimale siday haldoorka u jecel yihiin annaga laakiin waa yaa dhiigooda u bibisoonaynaa haldoorkeena waa raadinaynaa hebelaa la dile yaa anaa dile waa ku faraxsanaa anaa dile adna ilaahay baaba kaa dhaliyay marka dadkeena maanta ma arkaan ilaahay baaba dili doono goorkay tiisa noqotee adiga gacantaada yaan lagu sababin haldoorkaaga soomaalida haldoorka way sababsataa way dishaa allaha ma aragta ka cafiyo inta dhimatana ilaaha u naxariisto laakiin waxaasoo kalena waa lugooyada dadka fiiri hadda
cimilada ma naqaano, baahida kama gaashaamano, xanuunka kama gaashaamano, colaada kama gaashaano, waxba kama gaashaano. ummad maskiina oo dayacanana waaba iska dayacanahayba. ilaahay dadaaloo ku yiri waa kula jiraa. wax laga fooljignaado ma jirto. wax wadanka lagu dhiso lagu qurxiyo safetigiisana ma laha. caqliga dadka haddaan kow la kabine wadanka lama kabi karo. dhulkaas soomaaliyadan ku noolno ilaahayna siiyey ma hagaajisan karno haddaanan aqliga marka hore hagaajinin. dad aqliga ka fadhiyo dhul ma dhisi karaan. waa may isdhaafi karaan may waxba naf dhan aan waxba noogu fadhinin. waxaa ka hadlaysaa soomaalisa horumar ku gaaraysaa. maanta haddaad tiraa cabitaanaan shiida meelaan cabitaan ku shiidana oo la arko inuu kuu kala socoto dukaankii cabitaanka aa ku shiidanaysay, waxaa la rabaa in khasaare halkaa laga dhigo oodan adiguna cabitaan daba shiidin. see la yeelaa marka maxaa u malaynaysaa adiga oo wax weyn oo muuqdo qabana lafahaaga markaa u quudanaysa aanba la rabinbo. waa in ciid lagaaga shubo badarkaaga. waa dad fawda ah haddana wax qabsanaya male. hooyada cunugeeda ma qabsan karto, dowladda qofkeeda ma qabsan karto, sharci adag ma laha, ganaax adag ma laha, xabsi adag ma laha. qofka waalan qofka fiyo waa la isdhex socdaa. intii masaakiinta ahayd ee lafahooda la baxsanaysay ee nolol rabtay ee maanta okay ahayd ayagiiba lafahooda ku mashquulsanne waa loo diiday noloshii. canuga soo socda looma fikiro, caafimaadka dadka looma fikiro, waayeel wax xasuusta male, sabool iyo naafo wax xasuusta male, waa la isdhex boodaya. qofkay u kala socotana badarka ciiddaa looga shubaa hortaada badarka ciidda looga shubaya. hay maxaa la sameynaya marka? dad badan oo masaakiina oo aqligoodu iska yaryahay oo iska masaakiin oo aanan adkeysan karaynin dibadaha kusoo yaacay waa ku halaabeen, waa ku waasheen, waa isdileen, way rafaadeen. yaa og cid kuu og male. waxyaabaha distresska markay dadka ay iga soo weydiistaan dhiirigelinteeda ama waanadeeda waxaan ku dhahaa maanta haddaa dhimato maama yaa kuu og, maanta haddaa burburtay yaa ku og, jaal haddaa gashi yaa ku og. cid ku soo dabagelayso haba yaraatee ma jirto. kolay ehelkaada ku yihiin haddii caawa intaa qalad gasha jaal lagu geliyo bartaa jaalka ku gashaa lagugu dayni. laga yaabe haddaa nasiib leedahay inay youtube ley kaa hadasho, macquul inuu facebook meelaha warkaaga lasoo dhigo, macquul haddaad dhibaato weyn oo de tviyada kaa hadleen aad samayso in xoogaa labadoo beri lagaa hadla kabacdina finish meesha lagugu qaramsan doono ciduma ogo. so dantaada garo, amaan iska sii. waxaad ka dhex bixaysa xataa si quman uga dhexbax, markaasaad guulaysay doontaa insha allah. I love you so much saaxiibada qaaligaaya. waa sheekaysan doonaa amuurta khayr allah nooga dhigo. meeshaan waxaan usoo fadhiisanay inaan ku sheekaysano dan adduunyo. dad badan igu xiriiro oo barnaamijka bulshada muddo dheer sugaayay amaba aan ka sheekaysano problemaadka dhiirigelinta qalbi dejinta iyo waanooyinka iyo wax noocaasa. fikradaha ay haystaan waa beautiful. dadkaas hadday la yaabeen nolol maalmeedka, hadday la yaabeen soomaalida iska daba ordayso, dalkii dibadda dhibka yaallo, horumarka soomaaliyeed ay daneeyaan, dadku inay wax fahmaan daneeyaan. dad badanaa dha wallaahi aniga waa ciishooda markay soomaali igu soo dhacdo iyo dhibaatada haysato waa ciishooda. waayo dhinacna waa laga qoslaa, dhinacna waa laga oynaa, dhinacna waa waste of time, dhinacna dadkii kale waxaan arkaa heer gaaraayo. maxaa talaa maama? tala waa tii ilaahay. sidaa ula yaabtaa annagaba ula yaabne. maxaan ka qaban karnaa? nin walboo naftaaha meesha ka dhacday, nin walboo naftaa. marka amuurta khayr allaha ka dhigo, allaha nooga dhiga dhammaan. qof walba wuxuu tabcado ayuu leeyahay. maamo ayaa waxay haysatay business opportunity ay dhirta gado, dhirta shaaxyada iyo waxa laga dhigto ayay business opportunity u haysatay. markaasaa waxaa dhacday waxay aragtay gabaraa waxay aragtay waxay soo dhigtay twitterkeeda caleemahay gadaysay. markaase waxay tiri waxaan jeclaan lahaayay tiri caleemahan waxtarkooda inay ummaddu fahanto. gabar iska socoto oo u shaqayso waxay u shaqaysaa qolo magasiin ah ama waxay u shaqaysaa qolo oo journaliste u shaqaysaa. marka gabadha journaliste waa qolay u shaqaysaa oo journaal soo saarto. marka maamadii la xiriirtay waxay tiri waxaan rabi lahaa in aan ku siino column meel aad kaga hadasho dhirta. marka inta adigu aad taqaano weeg walba columnkaaga ma kaga faaloon kartaa? lacagna waa kugu siinaynaa maadaama aan qoraalkaaga arkay. waxay tiri maamadii haye lacag fiicanna waa loo sheegay. maamadii waxay soo dhigtay dhir. hal shay soo dhigtay.
halkii shay waxtarkiisa intay ka taqaanay ka faallootay sawirkiisana way soo dhigtee barta laga gadan karana way soo dhigtee maamadii marka qolada newspaperka ama maaragtay magasiinka columnkooda lacagay ku siinayaan oo waxay helayaan more readers dad badan oo aqriyay helayaan maamadii saasay lacag ku siiyeen maamadina shayga ay gadaysay iyada businesskeeda ahaana dukaankeedii bartay ka gadan karaan dadkii ayay u sheegtay iyo si international inay shaygii naftirkiisa la bartay inay u gado maamadii marka waxaa loo raacaa systemkeeda gooniya loogu raacaa websitekeeda waxaa laga gataa nafaqadii ama shayga dhirti dabadeedna waxay ku tiri halkaasaa ka heli kartaa mirihiisoo la beeran kara waa kana asigiyood shaax ka dhigan karta ama saasaa ka dhigan kartana waa kana maamadii businesskeeda wuxuu u noqday booming overnight wuxuu noqday like inay u baahato shaqaalo intay hawsha ka badatay marka gabadhaas iska socotay waxay garab qabatay gabadhaas maamadina waxay garab qabatay oo lagu tashanaa wiig walba inay keeni doonto nafaqo cusub newspaperkii ma u jeedaa marka inay dadkii kala maarmayn marka sometimes ideaha waa la raadiyaa laakiin haddaadaba qofkaaga waxba u ogolayn oodaba rabin qof Soomaaliyeed inuu heer gaaro dan adiguna seed ku gaari Soomaali way mahmaad waxay tiri gacmo wada jiray wax ku qaban karaan gacmo wada jir ayay wax ku wada qaban karaan adiga haddaan aniga ku caawin adigana aniga i caawin dan heer la gaari ma amaankuna waa saas haddaadan amaan isiinin dan adiguna amaan heli maysid weliga allaha ma aragtay qof wax yeelayay oo asigina wax la yeelo oo labadii qofood wada dhaawacmeen ama hadal ha ku dhaawacmaano ha lays caayo ama yad ha ku dhaawacmaano ha lays dilo dhiig ha daato soo ma arkin marka lays garab qabtana waa saas adiguna garabaad heli qofkaasna garab u heli waxay noqotay marka inay dad badan ee dhirta wax ka yaqaano newspaperkii ama qoladii magasiinkii inay abaalgareeyaan ay dhahaan aniguna wax soo saar sidaasoo kalaan haya please isii fursad aan column ku helo oo markaa page labaad laga geliyo column kale qof kaloo wax haysto daas waa maanta u aragtaa dhaqanka dad badan inay u cararaan website-yada inay meel yar ka samaystaan oo isku xayeysiiyaan waa la wada arka marka sheekada inay shaqeynayso haddaad gasho eBay oo kala fiiri on the site computerkaaga sitekiisa waxaa ku jira xayeysiin oo kambaniyaal ay isxayeysiinayaan qofkii website leh wuxuu u ogolaan karaa inuu Google ka geliyo maaragtay AdSense-ka in lagu xayeysiin karo websitekiisa wax adna lacagaa ka helay qofkiina readerkaaga rabaa ama dadka ku aqrisado rabaa si ay u raadiyaan businesskiisa up to now waa la isla shaqeystaa YouTube-ka haddaad soo gashid laga yaabaa inaa maaragtay videoga xayeysiin ay kor saaran tahay waxa lagugu kor xayeysiinayaa waxa laga hadlaayo ayaad adigu danaynaysaa waxa aad dhageysanayso ayaa lasoo ag fariisanaa haddaan qudaar ka hadlo ama qudaar aan kor kuu soo saaro YouTube-ka wuxuu arki doonaa inaad adigu qudaartan soo raadsatay oo lecture-kan aad dhageysanaysid qudaarna aan ka hadlay wax allaala wixii qudaar quseeyo ama nafaqo quseeyo ayuu soo dhaweeyaa ee xayeysiin wadato YouTube-ka wuxuu soo agdhigaa qofka qudaarta ka hadlaayo haddaan shoes ka hadlaa ama aan kaba ka hadlaayo wax allaala wixii kaba quseeyo ama fashionka kabaha quseeyo ayuu YouTube-kana soo dhaweeyaa baabuur haddaan ka hadlo baabuurkii soo dhaweeyaa waa fahansama marka inta company oo jirta adduunka way iswada xayeysiinayaan waxaana loo dhaweynaa qofka waxay ka hadlayaan u dhow weli ma aragtay channelkeena maamuwaano anoo ka hadlaa waxyaabaha fertilityga then adigoo fertilitygii channelada kale fertilityga ka hadlana laguu soo dhaweeyey maadaama channelkaas uu fertilityga support gareeyo oo fertilityga ka faaloodo then wixii fertilityga laguu soo dhaweeyey waa saas oo kale marka Soomaalida intay saas u fahmaan wax inta laga gaarayo ay saas wax u fahmi doonaan heer ma la gaari karo ilmaha waa loo baahan yahay dhulka waa loo baahan yahay caafimaadka loo baahan yahay horumarka waa loo baahan yahay ilaahay baa wax walba risaq dad iyo dunya bixiyo laakiin baahida waxay tahay aad u baahan tahay xanaaladina waa loo baahan yahay maanta de ilmo ku dhashaan oo ilmihii la xanaalaynin waa la baaba'aa haddaad dhaqaale hesho dhaqaalihii horumar aadan sii sameynin oodan hal abuur sameyn dhaqaalihii waa baaba'aa meeqa lacagaa ku soo martay qaarkeen maxaan ka haynaa wixiina soo maray waxba caafimaadana soo maray ma celceline qaarkeen maya soo bukaan socdaan ka nahay farxadaa ku soo martay ma celceline ilaahay baa wax celiyee may gadaashad waa caroonay caafimaadka gadaashiis waa xanuunsanay
marka saas waa cimrigana maba celi kartidba siduu u socdo marka dab waa galbanay maxaa ka tagta marka waari mayside waxa kaa hara waa I love you so much waa jeclaa inaan sheekaysano meeshan waa meel lecture qaas ahaan dhowdhoojinta qalbiga arrimaha moral supportka haddaa ka hesha lectureka nala fariisay gambarkaaga soo jiido waa inoo imaan doonaa hawsha xooggeeda insha allah sanadka cusub ay noo bilaabane laakiin waa idiin soo gelgeli doonaa insha allah waxyaabahan aan ka sheekaysanayna badi waa baahida bulshada dadka aan la shaqeeyo wixii aan kala kulmay iyo waxay ii sheegtaan iyo waxaan ka dhiirigeliyo dhan kastay noqotaba ilaahayna waxaan ka rajaynayaa qof walba oo lagjaradeenna iyo sheekadeenna dhagaysto inuu ku nasto wax ka faa'iido nolosha wax ka fahmo dulqaad lahaado ilaahay baryo ducaysto sharta adduunka ilaahay ka magan galo khayrka adduunkan ilaahay weydiisto waa naf walba waxay jeceshahay ilaahay baa wax bixiya adduunya bashbashii barwaaqo aakhirana janno ilaahay inuu noogu bishaareeyo dhammaanteen aamiin yaa rabbi dadka kale hadday fursad isa siinayaan dad iyo duunyaba wax walboo la qabtaba hadday fursad isa siinayaan annagana inaan isa siina xaqaa u leenahay inteena fursad heshay ee wax qabad leh ee wax soo saar leh allaha noo xifdiyo cadowga allaha ka qabto iljinni insi allaha naga qabto aamin yaa rabbi duca layskama reebe inta aan weli wax soo saar lahayn ee la murugaysan ee la qalbi jabsan ee xageen wax ka bilaabaa lehne irid kheyr qabto ee inoo wada abshir allaha u birbiriyo aamin yaa rabbi waayo walaa lagama maarmo garab walaa lagama maarmo marka allaha nooga dhigo garab wanaagsan dadkaas wax soo saarkana waa wax iska sahlan haddii la duceysto allahana soo saaro horumarna allaha siiyo haddaad xataa wax soo saar leeda waad ku caajisi kartaa inaad hore usii socoto naftaada meeshay habbi ku tahay aad hore usii aadana waa wax fiican haddaana laguuba diidanayn calaama su-aalaa saaran then maxaa ku haysto hadda dadka Soomaaliyeed hadday maanta cabasho bilaabaan inta badan waxay ku leeyihiin dan aniga maba lay tilmaamin weygii horumarka been ma aha xilliga hadda taagan Soomaali horumar iskuma tilmaanto qalbigeena ku dejinayn dhaqaalahaadii ka fikireen guurkaagay ka fikireen caafimaadkaadii ka fikireen waa adigu iska orod wuxuu ilaahay kaala kulmiya nolosha laakiin allaha noo kaso inay dadkeena nagu mashquulaan ay dib wax u soo celiyaan adiga ha baabi'in ha waalanin ha maarata niyad jabin ha isxumeynin saa moode maaha sorry waa kaasii mashquulnay laakiin bal aan kugu mashquulno hoo haddii maanta la furo albaab dadka caawiyo loo baaqo xigmadoo dhan markaasay dhalanaysaa lana baro dadka ilaahay idankiisa si ilaahayna raalli ka yahay adna horumar ku gaaraysid qofkiina horumar ku gaarayo bal ha laga wada shaqeeyo maamooyinka ha shaqey karo abaabayaasha ha shaqey karo dhalinyarada ubaxa soo socotaa shaqeyn karto dadku waa dhargi lahaayeen waa nasan lahaayeen way kala ammaan heli lahaayeen waddankaa nabad noqon lahaa qurux noqon lahaa meel loo xiiso ammaanoo laysku aamina noqon lahaa laakiin inta lays ugaarsanaa sidii bahladii that's not good heer lagu gaari maasaas marka amuurta kheyr allaha nooga dhiga dhammaan meeshaan haddaa ka heshay lagjarka haddaa ka heshay nala joog soo dhawow welcome waa inooyi lagjarka kale hadduu ilaaha yidhaahdo kheyr allaha sii inta fikradda igu soo kordhiso mar walbe aniga isii dhiirageliso se adika idiin dhiirageliyo kheyr allaha sii dadkaas iigu duceeya lama soo koobi karo adigana haddaa rabta inaa dhiiragelisid dadkaagana aad dhiiragelisid nambarada saaxiibada qaaliga waa kuwa hortaada ka muuqdo whatsapp ahaan cod iigu reeb magacaaga meesha adduunka ka joogtid iyo inaad lagjarka soo dhageysatay dabadeedna aad ka heshay habka aan dadka u siinayo waanada ama lectureka inaad ku soo nasatay daqiiqadihii aan inoo diyaariyey aadna jeclaan lahayd inaan isla sii joogno lagjaro kalena aan idiin keeno insha allah kheyr allah idi sii kheyr allahna sii dhammaan waqtiga allah noo barakeeyo halkan waa halka hadda aan joogi doono meelo kalaa ka imaanay oon baree kasoo qaadanay waana u noqon doonaa meelaheena insha allah danihii aan ka hadli jirno ila gara ahaa intana waa meesha xilliga hadda taagan aan ku nasanayno oon fikradaha ku sheergaraynayno wixii wanaagsan oo dadka lala hor imaan kara dhan waa idiin soo gudbinaa waxyaabaha qaarkoodoo ciil oo keenay cara keento afxuma ay la socoto ma keeni kari because aniga waa inaan adiga kaawaaniyo oon hore uga tagno wixii xun lama faafiyo wixii fiicanna waa la faafiyaa si dadka ugu nastaan aqligooda ugu kordhisadaan wixii nagu dhaamaan ayaguna ay noo sheegaan ama ila soo xiriiraan ama komanka noogu sheegaan taasaan kula jeclahay kheyr allah idin siiyo wixii fiican waxa waa fikrad fiican ilaahay baaba maaragta kheyr ku sheegay wixii xunna in layskaga tago oo dar ilaahay looga tagana waa wax fiican oo kaloo noo bannaan marka kheyr allah idin siiyo kheyr allahna sii dhammaan qof walba heerkaa la jeclahay aniga
meelo kale oon Soomaali ahayn ama meel kale oon Soomaali ahayn aan waqti badan ku noolahay xaggan carigan ingiriiska dadkana waxaan arkaa iskuma mashquulaan nin walbo adiga iyo tabartaada iyo meeshii ku geysa waaye dadkeennana waa la jeclaan lahaa inaynan isku mashquulin dhanka xun ee isku mashquulaan dhanka fiican waayo qof walba qofka kale wuxuu ku dhaama markii lagu shubo dadka waxay ku soo celin doonaan dalka iyo dadka insha allah amuurta kheyr allah ka dhigo allah nooga dhigo dhammaan marka dadkaaga u ducee wax kalood u qabata maanta haddaadan haynin dadkaaga u ducee dalkaaga iyo diintaada ilaahay inuu kuu dhowro wax kaloon sheegna ma naqaano ama wax kaloon sameyna ma naqaano I love you so much cafiya caafimaad isku soo noqod kale wanaagsan I hope inaad ku nasateen lecturekan waa inoo iyo midda kale hadduu ilaahay yiraahdo cafiya caafimaad ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu